heer deegaan iyo heer federaal xiriir sharci ku salaysan weeye waxa kale oo naga dhaxeeya xiriir xisbi ahaan maadaama hal xisbi aanu nahay hadda oo xisbiga barwaaqo aan ka wada tirsannahay marka xiriir aad u wanaagsan ayaa naga dhaxeeya iyo wada shaqayn wanaagsan annaga iyo dawladda federaalka waa gartay bal xisbigan barwaaqo haddaan isla jeexjeexno xisbigaanu waxa uu wiiqayaa bay leeyihiin dadka siyaasaddaada dhaliila mowqifka ummadda soomaaliyeed ee halkaa ku nool iyo inay isku tashaan wuu wiiqayaa xaqoodana wuu duudsiinayaa barwaaqana waa la yidhaahdaa adigu xaggee ka aragti inuu barwaaqo yahay iyagay u taallaa cidda le wuxuu wiiqayaa shacabka soomaaliyeed inay noo sheegaan waxay shacabka soomaaliyeed hore u haysteen ee maanta uu ka wiiqay inay si cad noogu soo dhigaan iyaga u taallaa shacabka soomaaliyeed 28 sano ee xukuumaddii ay ku amar ku taagnaysay TPLF ay dhisnayd dhac iyo barakac iyo dil iyo xaqraad iyo haba yaraatee wax ismaamul hoosaada oo ayna haysanin oo xiriir ciidamada laga maamulo ayaa soo marnay marka dimuqraadiyadda shalay aan maqnay shalay jirtay maanta maqan federalismka shalay jiray maanta maqan cidda le wuxuu burburinayaa dimuqraadiyad iyo federalism baa laga rabaa inay keenaan dhibaatooyin macnaha caddaynteeda xisbiga intii anagu aan joognay sanad iyo barka ay 8 bilood ahayd waxaan ku sharxay wixii noo qabsamay dhinaca xorriyadda dhinaca diinta dhinaca Soomaaliya waa gartay madaxweyne mar inaan dib ugu noqono waxa sharaxday waxaan joognay inaan hore weela socono dabcan waxa jira adigu waxaad aaminsan tahay xisbigan barwaaqo inuu u horseedayo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Soomaali galbeed horumar xaqoodana u soo dhicinayo ujeedada hadalkaagu ma sidaasa boqolkiiba boqolna tiraan u maleeyaa codkaaga ma maqal boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay in weji cusub oo siyaasadda centerka aan qayb ka nahay Soomaali ahaan oo shalay nalaga takooro inuu noo bilaabayaan aaminsanahay waa hagaag daawadayaashaan u daynayna ayagu ha falanqeeyaan waa tixgelinaa ra'yigaaga haddii aanu eegno arrimaha ugu muhiimsan ee dhibaatadu ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah dib u heshiisiinta dhibaatadii iyo tacadiyaddii dhacday oo aad si fiican uga soo sheekaysay ummadduna ay ka dharagsan tahay sidii looga gudbi lahaa oo loo heli lahaa wixii dhacayna aan loo iloobinin dadkii dhibaatadu ay gaartay xaqooda ay u heli lahaayeen si cadaalad loo helo maxaa arrintaas kaaga qabsoomay maxaase hortaagan sidaad la socoto tacadiyada ka dhacay deegaanku aad bay u ballaarnaayeen systematic bay ahaayeen waqti dheer socday wax hal sano iyo badh iyo 2 sano iyo lagu soo afjari kara maaha laakiin dhinaca documentationka dhinaca victimskii dadkii ahaa in la caawiyo ee wax soo gaareen dhinaca in politically wixii dhacay inuu khalaha la sheego xukuumaddu dadaal badan ka muujisay waxa ugu dambeeyay in dadkii jaloogadan ku xidhnaa hadda loo sameeyay urur iyo foundation dhaqaalahan lagu caawiyay xabsi loo furay dad far badan oo u baahnaa caafimaad in loo diray kuwa badan oo u baahnaa nolol in loo abuuray marka bilow fiican baa jira laakiin halkii aan rabay weli maanan gaarsiin waa gartay dhibaatadaas inta ay socotay aad ka soo sheekaysay waxaa dadaal dheer ku jiray jamhadda xoreynta Soomaali galbeed waxaad si fiican uga warqabtaa wiilashii raamaha lahaa ee hawdka ku jiray ee gabdhihii dabaruclinayay ee habeen iyo maalin la garab taagnaa hiilka iyo hooga ayagoo diiday marnaba in dhinacooda dhulka la dhigo oo ay qaataan waxa u qalmo wax ka yar waa say hadalku dhigeen ayna diideen inay gumaysto ay raalli ka noqdaan jamhaddaas iyo adigu iskuma fiicdiin baa la leeyahay waa maxay dhibaatada idin dhex taalla adiga iyo jamhadda xoreynta Soomaali galbeed jamhadda xoreynta Soomaali galbeed oo istiidanahay ma jirto haba yaraatee Soomaali galbeed wax sheeganaya haddaan heli lahayn waan wajin lahayn maan qabaa waa gartay marka waxa leedahay okay si kale aan kuugu dhigo jamhaddu waxay ku biirtay waxay noqotay xisbi waa la tagay waa la heshiiyey heshiiskaas adigu waa joogtay wixii lagu heshiiyey maxay ahaayeen heshiiska anagu jamhadda iyo Soomaali galbeed maana la heshiin Cabdi Xaafid get your facts right jamhadda la heshiin magaceeda ii sheeg kadib baan kaga jawaab waa gartay jamhadda iyo dawladda dhexe Itoobiya way wada hadleen ma jamhadda ONLF jamhadda ONLF marka spell out maxaan isbeel garayaa jamhadda ii sheeg maxaa la yiraahdaa magaceeda waxay ila tahay jamhaddaas in magaceeda laga dharagsan yahay inaan waqti ku lumiyo ma rabo waxa adigu ogtahay anaan ogahay jamhadda iyo dawladda dhexe way wada hadleen waxa la yiraahdo ha ahaatee wada hadalkiina waa la heshiiyey xisbi ayay noqdeen xisbigaas adiga ayuu kursigaaga damac kaga jira oo looltalin ka dhaxeeya
taas ayaana keenaysa ayaa la leeyahay in aad hadallo aan u qalmin aad hawada u soo marisid oo saxaafadda aad ka tiraahdid dhiig bay daadsheen iyo dhibaatay keeneen maxaa arrintaa ka jira jabhadda aad ka hadlaysaa waxaa la yidhahdaa jabhadda ogaadeen national liberation front jabhadda la yidhaha WSLF waxay ahayd marxalad ka mida marxaladihii halganka ee shacabkanagu uu soo maray arrinteedu waxay dhammaatay horaantii 80meeyadii marka jabhadda hadda aan ka hadlayno si shacabka maadaama kulli ayna xogta wada haynin qaar badan oo sida aad adigu sheegtay fahmaya jira waxaan ka hadlayno laakiin shacab Soomaaliyeed oo balaaran baa dhageysanaya jabhadda hadda aad ka hadlaysaa waa jabhadda ogaadeen National Liberation Front oo NLF la yidhaahdo waa sax weeye jabhaddaas Soomaali galbeed lama yidhaa waxyaalahan isku haysanay ka mid tahay magaca inay bedelaan oo magaca Soomaaliyeed ay qaataan oo magaca qabiilka ay ka tagaan oo ay Soomaaliya oo dhan metelaan marka jabhaddaasi heshiis bay ku gashay Asmara saddex qodob ka koobnaa kow in barnaamijkeeda siyaasadeed ay ku maqnayd maadaama hadda fursad ay si nabadgelyo ku fulin karto waddanka ka bilowday inay yimaadaan oo xisbi siyaasi noqdaan baa kow ahaa laba wuxuu ahaa in la maareeyo ciidamadii duurka ka joogay intii ay ku jireen halganka hubaysan saddexna waxay ahayd in iyaga iyo xukuumaddu ay dhistaan guddi isku dhafa oo ka shaqeeya qaabkii siyaasadda loogu tartami lahaa ama la iska kaashan lahaa xukuumadda deegaanka Soomaalidu way fulisay wixii qaybteeda ahaa 500 milyan lacag ka badan baan ku bixinay soo dhaweyntoodii soo dejintoodii maareyntii ciidankooda marxaladii dejinta iyo soo dhaweyntu way dhamaatay marxaladii tartanka siyaasadda noo bilowday waxyaalaha la iswadaarsanaya hadalkana wuxuu ka mid yahay uun qaybta tartanka oo iyana ay xukuumadda ku dhaliilaan anna iyaga aan ku dhaliilo hadal xanaf la iyo xanaf dhibaatii toona ma jiro cid walba barnaamijkeedii iyo fikirkeedii ay iibinaysaa marka ay dhibsadaan ma aha aragtida aan ka qabno iyaga aan u soo marino media ma jirtaa inaad tiri jamhaddu dhiig bay daariso dambi bay gashay hadda ka hor ma odhan hadalka maadan oran adigu waa ka gudbaynaa waa gartay jamhaddu waxa ay doonaysaa maadaama ay xisbi noqotay in ay jagada kursiga qabato oo kula tartanto ma ogoshahay si xor iyo xalaal in lagula tartamo oo cagajuglayn iyo dad la xiro iyo hanjabaad aysan ka imaanin ciidamadaada adiga ku gaarka ah askarta meesha ka shaqeysa ma oo kaliya inaan ogolahay in si xorana loo tartamo actually we are going extra mile in aan xitaa in wixii sharcigu dhigay wax ka balaaran gallo oo odayaasha deegaanka ay makhraati ka noqdaan guddiga doorashooyinka ee dawladda qaarkood lagu dhaleeceeyo la yidhaahdo xor maaha kaliya maaha odayaashu deegaanku inay noqdaan auxiliary capacity ama xubno kale oo iyagu goobjoog ka noqda tartan doorashaad u dhacayo ayaan diyaar u nahay waxaan u ballan qaadaynaa in tartan xor iyo xalaal deegaanka looga ogol yahay ONLF waxaan ku kalsoonahay in doorashada laga adkaan doono waa gartay waqtigeeda iyo maalinteeda ay leedahay dabcan inaan ka hor dhacno doonimayno waa ra'yigaaga waxaad ka hadashay waxyaalaad ka hadashay waxaa ka mid ahaa xorriyatul qowl iyo dimuqraadiyad inay jirto maxaa ka jira rag wariyayaal ah oo ka hawlgelayay deegaamadaas inay maanta caawa xiran yihiin oo xabsi ay ku jiraan maxaa ka jira arrinta wariye xidhan anigu ma ogi haddaad ogtahay magaca ii sheeg aan uga jawaabo waa gartay wariyaha magaciisa intaana kuugu soo noqonin wariyaasha xiran magacooda intaana kuugu soo noqonin madaxii hore ee brotokoolka cabdulqaadir muxuu ku xiran yahay xaq ma loo maray xiritaankiisase waa arrin hay'adaha sharciga ay gacanta ku hayaan oo baaritaan ku socdo waxaa loo maray sifa sharciya hadda laakiin arrin sharciga lagu hayo maadaama ay tahay inaan ka hor dhaco ma rabo waxaa lagu xiray wuxuu ahaa iyaga oo qawaaniintii iyo nidaamkii dowladnimada garab maray marka faafahinteedana hay'adaha cadaaladda u taala waa gartay waxyaalaha uu hareer maray ood ogtahay maxaa ka mid ah waa waxyaalahan ku leeyahay hadda anigu ahaantay maadaama arrin maxkamaddu gacanta ay ku haysan tahay anigii oo madaxweynihii deegaanka haddaan dembigiisii hadda halka ka sheego isaga laftiisa cadaaladdu uu helaya in dhibaato ku noqotaa laga yaaba oo bias ay abuurto waxaan markaa jeclan lahaa in maxkamadda iyo hay'adaha sharcigu ay arrintaas ay iyagu ay qeexaan laakiin guud ahaan inuu sharciga baal maray oo kala dambeyntii iyo kala amar qaadashadii uu diiday qalalaase deegaanka lala rabin uu qayb ka ahaa intaasaan guud ahaan kuu sheegi karaa si duulmara qalalaasahaas waa waxaad mararka qaarkood ku tilmaantay ayaa laleeyahay afgembi ujeedada masaasa
qalalaaso siyaasadeed baan idhaahno hadda qalalaaso siyaasadeed noo yara qiix marka hadduusan afgembigaad sheegaysa ahayn qalalaaso siyaasadeed uu qeexan yahay waa qalalaaso siyaasadeed qalalaaso siyaasadeed wuxuu noqon karaa baarlamaanka oo la hor istaago oo geli waaye shaqadooda qabsan waaye wuxuu noqon karaa qof siyaasi oo la xiro wuxuu noqon karaa dad mudaharaadyo sameeya wuxuu noqon karaa dad rabshado geysta nooca uu yahay noo qiix adigu intaaba iyo waxyaalo dheeraad buu noqon karaa waa saas sheegtay laakiin aan waxaan ku daynayaa qalalaaso siyaasadeed hadda wagaag wariyayaasha xiran waxaa ka mid ah mahdi xasan nin la yidhaahdo gafdiid khadar colaad maxaa ka jira xogtaan hayo khadar colaad oo aniga ahaan jiray advisorkayga ahaa ma xidhna banaanku joogaa lamana xidhin totally waa been gafdiid yarka la yidhaah oo golaha dhexe ONLF wariye ma aha waa siyaasi golaha dhexe ee jabhadda ONLF wuxuu ku dhawaaqay fal dambiyeed dil in lagula kaco madaxweynaha deegaanka oo aniga ah toddobaad weliba aniga walaalkii la tooriyey oo tuhun ah in dad ku dhowi ay tooriyeen ayuu arrintaa ku dhawaaqay waa la xidhay laakiin hadda waa la sii daayay mahdi xasan ma xidhna total ma xidhna laakiin ma xidhna marka taas waxay muujinaysaa saddexdaa magaceeda haysaba inayna xidhnayn adaa xaqiijin kara hadhow la soo hadli karaa wagaag gafdiid xarigiisa tuhun waxaan ahayn miyaa lagu hayaa mise wax cad baad u haysaan xarigiisa waxaa lagu hayaa wax cad oo audio visual ah wax cad oo audio visual ah mar kaliya ma ahayn muddo dheer ayaa wuxuu ka shaqaynayay waxyaalo baalmarsan qawaaniintii iyo sharcigii ay soo rogtay dowladda federaalku ee ah isticmaalka baraha bulshada oo si غير mas-uulnimo ah kicinta bulshada iska horkamida diimaha abaabulka in qabiil ku duulo in dadka diimaha kala haysta ee deegaanka jooga la laayo siyaabo kacdoon oo noocaas ah ayuu ka shaqaynayay oo na xusuusinaysa xansuuqii ka dhacay jijiga August 4 marka in badan baa loo dulqaatay laakiin aakhirkii markii ay meel adag gaadhay hay'adaha nabadgelyadu talaabada qabsadeen kadibna annagoo ka duulayna imika deegaanka hadda banaanku jooga walow cadaymo ku filan in maxkamad lagu geeyo oo lagu xukumo ay yaalaan wagaag cadaalad inuu heli doono oo loo qaban doono garyaqaano isdifaaci doono ma suurto gelinaysaan oo xaqiisa uu heli karo si uu maaragtay arrinta cadaaladda ay u suurto gasho horta iminka banaanku joogaa waan ku idhiba banaankuba joogaa lawyer buu qabsan karaa television baa laga soo deyn karaa haddii la rabo maxkamadda hadduu dalbado ehelkii iyo qaraabadii iman karta waxaa iman kara hadduu u baahdo caddaan niman hadduu u baahdo inuu yeedho oo maraykanka ka socda way soo geli karaan wax haba yaraatee loo diidan ma jirto laakiin hadda maba xidhna noomana qorshaysna in arrintii loo sii raaco oo xabsi lagu celiyo wagaag waa gartay waxaan kaloo jecelahay inaan wax kaa weydiiyo waxaad ka soo hadashay hadaayata waxqabadkaagii iyo waxaad idiin qabsoomay intaana fursad kuu siin waxa kuu qabsoomi waayey iyo sababto caawa jigjigaad fadhidaa waxaana ka jira biyo la-aan baahsan oo dhibaatada ugu weyn dadka haysata ay ka mid tahay biyuhuna waa aasaaska nolosha ama wax walboo nool maxay ku dhacday jigjiga inay caawa biyo la-aan tahay horena aysan u ahaan jirin jigjiga biyo la-aan way ahaan jirtay hadda ka hor waan la sheegi karaynin haddana waa la sheegayaa intaasaa u dhaxaysa waxay jigjiga biyo la-aan u tahay maadaama mashaariic 5 bilyan oo bir ku dhawaada oo xilliga cabdiile in la fuliyo ahayd la cunay oo haba yaraatee meel alla meel ay maraan aan la haynin intii annagu aanu nimidna mashaariicdii aanu bilownay weli ayna dhammaanin laakiin aan rajaynaa hadda inay dhammaadaan laakiin dhanka biyaha coverageka biyaha magaaladu aad buu fiican yahay population fara badan baa kusoo jabay oo yimid magaalada intii isbeddel kadib ah biyo fiican baa ka jira magaalada taa laftigeedu waxyaalaha social media snapshotka la soo gelinaya xaqiiqada dhabta ee magaalada ma muujinayo waxaan jeclaan lahaa in wasiirka biyaha aad wareysato si uu kuu siiyo detail information oo ku saabsan guri kasta inta biyo laga cabo iyo sida xaaladdu tahay laakiin biyo la'aanta waxa ugu canjijiga 10 sano oo televisionka laga soo deynayay in biyo ka socdaan oo la hadli karaynin oo lacagteedii la cunayay oo haba yaraatee wax water infrastructure laga sameeyay uuna meesha ka jirin haba yaraatee waa gartay waxaad ka hadashay waxyaalo fara badan oo idiin qabsoomay waxaad noo sheegtaa 2 ama 3 mashruuc oo intaan iminka hadda xilka adigu haysay aad fulisay oo la taaban karo gaar ahaan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha midaal ahaan markaan barnaamijkan diyaarinaynay muddo dheer aan ku guda jirnay dadku waxay noo sheegeen jidadku inay burbursan yihiin aysan maaragtay lahayn wax dayactira ama mashruuc la geliyey aysan jirinin maxaa arrintaa ka jira
si aan u ixtiraano dadka daawanaya waxaan kuu sheegay mashaariicda sanadka la fuliyo waan kuu sheegay 450 dugsi baan ku yiri 30 health post health center baan ku yiri wadooyinku ma burbursan yihiin mudane kulli way dhisan yihiin waxaan ku balan qaadayaa in haddii aad diyaar tahay aan kuu soo dirno sawiradoodii oo idhoobyaal oo sii deyso maadaama documentary hadda laga diyaariyey jidadku way burbursan yihiin sawirada dawladdu ay dhamayso yara dhamayso sawirada haddaad ku kalsoonay adu noo imanka ku xasuumayna aad aragtid iyagoo live iskaa u imaad la yidhaa waa gartay waa ka qancay arrintaas waxaan doonaya inaan ku idhaahdo laakiin waxaa jira dalku waddanka laguma hogaamiyo baahi baa jirta laguma hogaamiyo dalkani baahi baa ka jiri doonta maanta ka jiri 5 sano kadib bay ka jiri 50 sano ka jiri dalalka aad joogtay horumaray ingiriisku uga horeeyo infrastructure-kiisu ilaa hadda laga hadlaa isagoo dal horumaraya iska daa Afrika dal kamida gaar ahaan dal fiqiir oo Ethiopia ka sii tirsan marka protest iyo baahi baa jirta laguma qeexi karo tayada wax qabasho ee dawladdu waxa lagu xisaabtami karaa resource-gii ay haysay dhaqaalihii ay haysay iyo qorshayaashii u yaalay maxaa uga fulay talan waxa laga yaabaa dalkan inuu u baahan yahay $50 bilyan inuu u baahan yahay laga yaabaa wax laga qabto laakiin lacagtan hayna ay taa laga yaabaa $500 milyan $500 milyan aan hayno maxaan ku qabanay baahida bulshada maxaan ka buuxin baa la oranayaa mooyee jijiga maxay wadooyin laami u yeelan weyday maxay u yeelan weyday street lighting maxay underground tan u yeelan lama weydiin karo marka taaliftigeedu waxa in ay noqotaa wax la xiriira maxaa ku jaban in la idin weydiiyo oga jawaabtaan xataa haddii aan awoodiino ahayn oo dadka aqoonsan maxaa diisan in la idin weydiiyo why not inaad weydiiso xaq baad u leedahay laakiin de waaqici bayn ahayn waa hadda macnaha anoo ku idhaahdo magaalada xamar maxay u leeyahay kaan weyday magaalada New York oo kale amin waa waxaan ka hadlay waxa weeye su'aaluhu inay noqdaan realistic su'aalo inay noqdaan baa muhiima laakiin weydiintu dhib ma leh laakiin inay noqoto waaqici ah jira laakiin jijiga isbedel baa ka muuqda wax badan baa laga qabtay mashaariic fara badan baa socda waxa ka socda hadda ilaa iyo 10 kilomitir oo laamiya oo Shiina ay dhisayaan oo markay dhamaadaan aan filayno in magaalada muuqaalkeeda ay bedelayaan waxa ka socda ilaa iyo 22 mashruuc oo cobblestones ka socda magaalada mashaariic fara badan ka socda waa hagaag waxaan wali ku guda jirnaa awood qaybsiga iyo inaan mawduuc kale oo la xiriiro oo ay isku lamaanan yihiin hoos aan ugu degno oo masuq-maasuqa waxa la yiraahdo bal intaan masuq-maasuqa u gelinin waxaan iigaga warantaa dad waxaa jira barakacayaal ahaa oo xerooyin ku jira dadku waxay qaarkood leeyihiin waxba looma qabanin oo dawladda gacanteedu ma gaarinin ma tabardar idin geysay mise inaad wax ka qabatin baanan doonayn sida leen ku eedeynayo mise gacantiina way gaadho wuxuun baad qabateen waxba baan ka qabatay barakacayaasha ilaa iyo hadda taageerada la siiyo aad bay u badan tahay baahida barakacayaasha waxay u kala baxdaa wax daruuri oo life saving intervention la yiraahdo oo ah in caafimaadkooda waxbarashadooda biyahooda cuntooda laga warhayo iyo in la sameeyo wax la yiraahdo durable solution oo ah in xal waara loo helo xalka waara waxa weeye in saddex qaybood loo qaado ama la raro ama meeshay joogaan nolol loogu sameeyo oo maaragtay durable solution loo sameeyo qaybta dhiman waa qaybtan in xal waara loo helo waxay ku xiran tahay arrintaasina in dhul ay degaan la soo helo in miisaaniyad ballaaran oo lagu raro lagu soo helo in hay'adihii caalamiga ah iska kaashadaan adduunka anu waxaan ka shaqayn jiray hay'adaha muxuu ahaa humanitarianka meel sanad iyo badh dad barakacayaala oo loo yimid inta lagu oo weliba oo ilaa iyo 500 kun ama 600 kun inta loo yimid xal waara lagu gaadhay intaan shaqaynay maan arag marka saa daraadeed waa degdeg baan isleeyahay wax lama qabantu wax badan baa la qabtay indicators humanitarian indicators kooduna ama xaaladooda nololeedna dadka caadiga ee kale aad uga sii liidato marka laga tago inay meelaha ay ku nool yihiin ay ku urursan yihiin oo saxadooda ayna fiicnayn marka baahi badan baa ka jira deegaanka wax badan oo loo qabtay wax badan way dhiman yihiin waa hagaag waxaan kaloo jeclaynaa wax kaa weydiiyo waxaa jira dad ka cabanaya deegaamada qaarkood in aan maaragtay awood qaybsigu uusan gaarinin oo aad ku soo koobtay waasay hadalka u dhigeen adiga iyo dad kugu deegaana ama ku dhow oo kaliya laakiin gobolada qaarkood aan la gaarsiinin awoodda dawladda iyo dhaqaalahaba maxaad eedayntaa ugaga jawaabaysaa waxaan anu aaminsanahay in xukuumaddan ahayd xukuumaddii ugu ballaadhnayd ee shacabka deegaanka Soomaaliyeed gaadhay waxaan aaminsanahay dagaalka nagu socda badankiisu inuu la xiriiro maxaa loo qaybiyay resourcigii deegaanka dadka Soomaaliyeed loo gaarsiiyay maxaa awoodii loo balaadhiyay
in fact anu dhaleecaynta aan maqlataa ma aha dhaleecaynta aan maqnaa waxa weeye dhaleecayn iga soo gaadha kuwa aad sheegayso laga yaabo inaad ii aanaynayso ay leeyihiin dadkii kale ay wax siiyaa dadkii isaga u dhow wax ma siiyo taasaan maqli jiray tan caawa igu horeysa aad sheegayso hagaag haddaad sheegto waan jeclaan lahaa aaga aad leedahay waa laga qadiyay dowladda waa hagaag musuq maasuqan waxay rabaan inaan dhex joogo dad waxaa jira magaalooyinka qaarkood dabcan degan oo ayagu cabanaya laakiin waan u imaanaya waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan hoosta ka xariiqno dad badan oo nala soo xiriiray gaar ahaan markii aanu soo daynay video annagu aan kaa codsanay inaad noo soo duubtid oo aanu ku niri si aan dadka u wacyigelino videoga noo soo duubaan kaaga mahad celinayo dad fara badan oo nala soo xiriiray ayaa waxay sheegayaan oo gudaha jooga caawa jigjiga iyo meelo kale dunida daafaheeda ah musuq maasuqu inuu marayo meeshii abid ugu sarreysay waa say hadalka u dhigeen intaad adigu xilka haysay aadna aad samaynaysid iyo inaad dadka u hilisid qaarkood maxaad ka leedahay arrimaha lagugu eedaynayo mudane madaxweyne badanka dadka arrimaha eedaa soo jeedinaya waxay u badan yihiin dadkii cabdi ilay xukuumaddiisa ka faa'iiday ee la shaqaysan jiray oo wixii ay u barteen waayey oo lacagtii iyo wixii keligood ku koobnaa uu ka kala baahay ayay u badan yihiin waa wax eedayn iska joogto oo naqaano weeyaan waxaa la yaab leh dadka maanta ka hadlaya musuq maasuq waa dad macnaha musuq kelmadda la yidhaha xitaa bulshada dhexdeeda xilli aan la soo qaadi karin noolaa weeyaan waxaa weeye madaxweyne hore cabdi ilay iyo familigiisa iyo reerihiisu sidii boqor bokaasa iyo sidii fadna marcos iyo dal ay lahaayeen oo lacagtiisa raranayeen oo la og yahay oo magaalada gudaha ku leeyihiin hantida la qaadan yihiin dadkii soo joogay ee fadhiyay ee daawanayay way dadka maanta ka hadlaya musuqii halkii uu ka fog yahay waxaa markaa caddaynaa inaan musuqii la dagaalanay mashaariicda sanadkii barka aan qabanay annagu ee aan ku qabanay miisaaniyadii deegaanka 10kii sane u dimaysay lama qaban lacag waddanka shiinaha ka soo amaahanay iyo tu imaaraadku nasiiyeyna ma jirto waa lacagtii deegaanka uun marka waa la dagaalamay musuqii monopoligii dhaqaalaha ee gacanta ugu jiray madaxdii deegaanka waan baabi'inay oo hadda ka hor jirtay cagad biyo soo gashay magaalada oo cabdi ilay tiimkiisu ayna lahayn ma jirin annagu taa dambiin ganacsigu waa xor waxaa kale oo taa caddayn u ah inaan ilaa heer degmo ilaa iyo heer kelil heer deegaan ugu yaraan mas-uuliyiin gaaraya 30 ka badan oo heer degmo iyo heer deegaanba xilalkii looga qaaday qaarna loo xidhay musuqiya wax la xiriira istamarin la xiriira marka waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inaan meel aad iyo aad wanaagsan aan gaarsiinay la dagaalankii musuqi waxaana caddayn u ah adeega bulshada aan siino hadda iyo mashaariicda aan fulnay tayadooda iyo tiradooda waa gartay waxaa jirtay dhowaan dad saraakiil qaarkood ay ahaayeen amase jagooyin hayay oo jagooyinka laga qaaday jagooyinka lagu bedelay dad kale oo adiga isku hayb aad tihiin la sheegaya arrintaa maxaa ka jira inaad ii faahfaahisaan jeclaan lahaa maalba deegaanka waxbaa la bedelaa oo shaqooyinka jira awgood iyadoo la eegayo kolba qiimaynta la sameynayo la xidhiidha shaqo wanaagga bedelaa la sameeyaa marka haddii aniga kuwa la ii aaneynaya ay jiraan inaad ii sheegto si aan uga jawaabo kuwa aniga la ii aaneynaya kuwa yihiin laftigeeda lama garan karo waayo soomaalida waad garanaysaa qabaa'ilkeedu kol meel bay taagan tahay marka macnaha ma kuwa gobol ahaan la ii aaneynaya ma kuwa qabiil ahaan haddii qabiilta halkee weeye waad garanaysaa soomaalide marka inaad saa u kala faahfaahisaa ficnaan lahayd laakiin annagu performance iyo tashi waxaan keliya sameeyaana ma jiro waxaa jira guddi iyo xisbi iyo nidaam iyo dowlad baa jirta taas baan wax ku maamulaa hadday noqoto aanayna waxaan aaminsanahay dadku inta badan waxay aaminsan yihiin meelaha aan ku dhashay oo kale iyo inaynan hadda ka hor oo aynan xitaa deegaanka xitaa golaha kaabinetka xitaa wax ku lahayn kii ugu horreeya hadda soo galay baan filayaa marka inaad ii faahfaahisaa ficnaan lahaa si aan uga jawaabo oo aanan speculation aan u samayn waxaad noo qiixdaa waxaan doonayaa inaan adiga fursadda marka hore ku siiye dhowrkii qof oo ugu dambeeya xilka ka qaaday 3 ilaa 5 bilood oo u dambeysay ay ahaayeen waxaa ugu dambeeyay hogaankii nabadgelyada oo xilka laga qaaday maxaa uga qaaday waxaa looga qaaday isagoo gudan waayay waajibaadkii loo igmaday kana doorbiday inuu maaragtay ku lug yeesho hawlo lid ku ah shaqadii loo diray nabadgelyada maxaa ka mid ah hawlaha waxaa ka mid ahaa muxuu ahaaye u kala eexasho qabaa'ilka deegaanka
ahayd inuu cadaalad u sameeyo waxaa ka mid ah musuqmaasuq baahsan waxaa ka mid ah xafiiskii oo jahwareeray oo istaraatiijiyad degan oo lagu maamulo ayna jirin iyo guud ahaan shaqooyinkii nabadgelyo oo hoos u dhacay waagaag shaqsiga lagu bedelay maxaa kusoo xulatay shaqsiga lagu bedelay waxaan kusoo xushay aqoon iyo karti iyo sumcad shacabka Soomaaliyeed muxuu ahaayay Soomaaliyeed ku nool ay ku yaqaanaan waa nin doctor of PhD haysta oo public health iyo conflict resolution xalinta khilaafaadka intaba ku takhasusay weey deegaanka aqoon lahaa ka shaqeyn jiray ilaa iyo heer la taliya madaxweyne ahaan jiray akhlaaq wanaagsan iyo weliba strategic thinking oo ah qof aan filayno in sectorka security-ga ama nabadgelyada oo u baahan in si ka duwan sidii hore loo maamulo maadaama hadda ka hor uu ahaa meel lagula dagaalamo jabhadda ONLF iyo ururada markaa loo arkayay inay mucaaradka yihiin هذا لكن هذا سعيد يصيرون سكتر كان مباهي أنت ترانسفورميشن وسميه عند قبان كرتو كراسيتي اللي مركز رادنيني قفان أورجنا إنه قبان كرويان وهاك شنت جاكو وقصة الرئيسة أن دولة هذا أن مركز إكتيد أن أفرت هذه مركز العرب أفرت كلام نمان كهيا مسؤولين تهيا أن ذاتك قار وحي ليهين جاكوين كيودن مصطفوها وقلت حي أنا أسجع يسكت جفيهين ما وحلا هذا أنت أسوح جرمه ومسقها وبين عدو شنت أقصر يسمان أجنب وعيدود إسلا أجنبا go ahead وحاوي مدحوينها deegaanka waa aniga afayeenka baarlamaanku waa nin gobolka ka soo jeeda daawa gooyaali xagga ka soo jeeda weey madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ka soo jeedaa gobolka city shinil ka soo jeedaa gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu ka soo jeedaa togwa chale iyo agaas ka soo jeedaa auditor generalku wuxuu ka soo jeedaa jijiga madaxa xarunta dhexe xisbiga wuxuu ka soo jeedaa gobolka liibaan shanta shan ka sareyso kale oo aan ogahay ma jirto وهاك daawadayaasheena su'aal ay qabeen bay ahayd ayaga ayaan u deenaynaa meesha ka keenayna ayaga la aadi doono kulli waa ku maadsan tahay ay wali xogaa waxaan musuq la yara joogo waxaa jirtay haddaan xusuustaydu aysan khaldanayn in ay jirtay meel laga dhisayay isbitaal dhiig lagu kaydiyo oo aad tiri isbitaalkii hawshiisii waa la wadaa wasiirkaaga caafimaadkuna uu yiri arrintaa waxba kama jiraan oo projectkaas ma bilaabanin labadiina yaa saxsan haddii hadalka sida loo dhigay ay sax tahay isbitaal ma hayne wuxuu ahaa bangiga blood banki dhiigga buu ahaa wuxuu ka socdaa magaalada fiiq buu ka socdaa hadda wuu gabagabooday 80% uu dhamaaday in la qalabeeyo ayaa harsan marka iyada isbitaal uu bilowday 2 bilood min lahaa waxay ahayd arrin la xidhiidhay warbixintii la soo gudbinayay markaas oo uu bilowday ma bilaabin wasaaradii anagu aan nidib u ahaa marka wasiirkiina wuxuu yiri mashruucu ma bilaabin adna waxaad tiri meel fiican buu marayaa adiga wasiirkaagu miinaan isla soconno iska warqabinin aniga wasiirkanu bilaadan baan nahay iska daa anaga adduunka meel bala khaldama miscommunication ku dhaca waa normal nothing unique about it waa wax markiiba meeshii iyadoo la fadhiyo la hadal imaamku sida la yidhi mashruucii uu bilowday oo dhulkii waa lala wareegay qofkii qandaraas laha iyo ma bilaabin baa la yidhi mashruuca lacagtiisa lama cunin isla wiig baa lagu bilaabay maanta mashruuci waa gabagabo mashruuc inuu gabagabo yahay waa wax wanaagsan oo aan malihin gabagabo ma ahan laakiin waxa aan hoosta ka xariiqayaa miscommunication waa dhacayaas laakiin miscommunicationka amase hadalka in maaragtay isdaba maro way dhici kartaa bini aadan baa leeyahay kuma diijani hilmaanku waa dhici karaa haddaad bankigii dhiigga hilmaanaysaan inuu bilowday iyo in kale maxaad kaloo xasuusanaysaan baad isleedahay maxaa kaloo ilownay adaan ku weydiinayaa waxaan ka hadlaynay mashaariic gaaraya 500 600 mashruuc ka hadlaynay waxaan ka wadaa oo la jeedaa madaxweyne waxaan oo la jeedaa haddii taas aad ilowdeen oo bankigii dhiigga dadka lagu badbaadinaya aad ilowdeen ma laga yaabaa Britain aad biyaha ilowdaan ma laga yaabaa Britain korontada ilowdaan Britain ma laga yaabaa inaad amniga ilowdaan cabdi xaafid waxyaalo fara badan dadka inaga sugayaan baa muhiim ah oo inaan ka joorno u baahan bankiga lama iloobin adduunka typo baa jira miscommunication baa jira wasiirkii xogtii uu ka helay magaalada wuxuu ahaa mashruucii waa la bilaabay ninkii qandaraas lahaa mashruucii wuu bilaabay tii buu ii soo gudbiyeen ku hadlay gobolkii baan ka jeegaraynay maya ninkii wuu yimid meeshii laakiin weli ma bilaabin baa la yidhi isla goobtii la fadhiyay baa lagu saxay it is absolutely wax laga hadlo oo weyn haba yaraatee maaha waa wax islaantii lagu saxay weeyaan total
وهجاج قرما أيها مشروع عاص مركز سوق بجميع ما دام الستيج برسنت وهذا لما على ساتري وبعد ما دام كله هذا وهذا وبهاته وحلقوا صدره يا هلكو مرة